Bismillahirrahmanirrahiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay saaxiibada qaaliga ah dhageystayaal. Halkaa naga daawanaysiin waa taariikhda ummadaha. Magaceyguna waa Ruun. Maanta taariikhda Soomaaliya qaybteedii labaad ayaan ka hadli doonaa insha Allah. Qaybteedii hore haddaa soo fiirsanin dib u laaw fiidiyoogii hore aan ku soo dhignay. Marka insha Allah intaasaan rajeynaa inaan soo dhageysan doontiin. Dhagax ku xusan farshaxankii hore oo laga helay Laasgeel dhulka Soomaaliya waxa uu ahaa midka dadku degan yihiin in ka badan 1000 sano Nabilaah Ciise calayhi salaam hortiisa. Waqtigaasi oo dadku intooda u badan ahaayeen duurgaleen dhaqda beeraha iyo xoolaha 12 sidaasi ay tahay waxaa jirtay xadaarad tartiib isku soo tareysay oo waxaa la sheegay in dadkaasi ay lahaayeen xiriiryo ganacsi xoolaha iyo dhirta iyo weliba cilaaqaad xog dheer oo ku saleysan maamul iyo horumar. 13 si kastaba ha ahaatee xadaaradihii ugu horeeyay waxaa ka mid ahaa farshaxankii beeraha oo xoolaha dhaqashada iyo maamulo yaryar oo ku saleysan beelo iyo ama deegaanka Laasgeel oo ah meel u dhow magaalada Hargeysa waqooyi galbeed Soomaaliya. Waxa uu ka mid yahay taariikhda qadiimiga ah waxaana lagu qiyaasay in uu farshaxankaasi jiro ilaa 5000 sano ka hor. 5000 sano 14 badmareenkii hore. Taariikhda badmareenka Soomaaliya waa taariikhda dadka Baxaariga ee u dhashay ama asal ahaan ka soo jeeda waddanka iyo dadka Soomaalida. 15 sida lagu sheegay buugaag badan oo taariikhi ah. Dadka Soomaalida ahi waxay tan iyo waqtiyo hore ahaayeen kuwo ku safra badaha waaweyn ee caalamka ayagoo u socdaalaya sababo kala duwan sida ganacsi, aqoon raadis, dalxiis iyo kuwo kale. Boqortooyooyin badan oo maamulo ka soo jiray geyiga Soomaaliya ayaa waxay dhiseen noocyo badan oo maraakiib doonyo iyo qalab lagu safro. Kuwa ugu caansanaa waxaa ka mid ah dekedda Saylac oo lagu qiyaasay inay jirtay in ka badan 1000 sano. Reer Xamar ganacsatada reer Muqdisho ee u kala safri jirtay Soomaaliya iyo Hindiya. 16 intaasi ayaan kusoo koobaynaa dhageystayaal. Waa idinku dheeriyaa umaleena marka insha Allah raali noqda. Insha Allah nacaabiya oo channelka subscribe saar iyo sidaan ku gaarno subscribe badan insha Allah oo xiisaha u soo kordhino waxyaabo badan ka soo hadalno insha Allah na dhiirigeliya dadkaygiyo idinka dadkeen ahmo.